ku dhawaad 100 askari oo laga qaaday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa laga dejiyay degmada Garbaharey ee xarunta gobolka Gedo iyadoo ciidamo kale oo dheeraad ah oo Jubbaland ay ka soo dirayso Jubbada Hoose xilligan ay wadada ku soo jiraan bilad xaabo ayaa la isugu tagayaa dhibaato xoogan ayaana halkaasi ka taagan xiisada colaadeed ee halkaasi ka taagan dadka deegaanka waxa ay sababtay inay halkaasi ka baxaan wararka ugu dambeeyay ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa ay soo dhawaada saaxiibayaal wararka ka imanaya degmada bilad xaabo ee gobolka Gedo dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ku soo waramaya in rasaas goos ah laga maqlayo xerada UK ee duleedka ka ah degmadaasi iyo sidoo kale gudaha degmadaba oo ay ku kala sugan yihiin ciidamada federaalka iyo ciidamada maamulka Jubbaland gaar ahaan kuwa daraawiishta oo maalmo ka hor xarumo muhiim ah kala wareegay ciidanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya wararka ayaa sheegaya saaka diyaarado ka baxay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka inay tageen garoonka diyaaradaha ee degmada Garbaharey ee xarunta gobolka Gedo waxaana wararku ay sheegayaan in halkaas markii ay ka degeen kadib dhowr cabdibile oo ka yimid dhinaca deegaanada kale ee gobolka ay halkaas yimaadeen kuwaas oo halkaas loogu diyaariyay ciidamadan kaligood ma aha waxa la socda hub sidoo kale waxa la filayaa in gaadiid dagaal dowladda federaalka Soomaaliya saacadaha soo socda ay ka qaado magaalada caasimadda ee Muqdisho iyo ciidamo kale oo dheeraad ah oo lagu kaabayo ciidamadaasi kol hore laga dejiyay degmada Garbaharey ee gobolka Gedo dowlad goboleedka Jubbaland xaaladda Gedo ayaa ka sii dareysa marba marka ka sii dambaysa dadka shacabka ah saaka waxa ay bilaabeen deegaanadii lagu dagaalamay ee bilad xaabo inay ka baxaan qaybtood oo duleedka magaalada ay aadaan halka kuwa kalena ay gudaha magaalada degan yihiin saaka waxa xirnaa dhammaanba goobihii ganacsi ilaa iyo saacadan aan idin hadlayno waxa jira dhaqdhaqaaq ciidan oo aad u xoogan oo dhinacyadu ay kala wadaan inkastoo aan ilaa iyo hadda lagu guuleysan in xiisadaasi la dhaxgalo dowladda federaalka Soomaaliya ay ku adkeysanayso in gobolka Gedo ay ka qabato doorasho la mid ah tii ka dhacday Kismaayo bilihii la soo dhaafay waxa jira Axmed Madoobe isla sidaas oo kale isagana inuu ku dadaalayo in dowladda federaalka Soomaaliya marna aysan wax doorasho ah ka qaban gudaha gobolkaasi Gedo ee Jubbaland Cabdirashiid Janan oo dowladda u xil saartay dhinaca gobolka Gedo iyo guud ahaan deegaanada Jubbaland xasilintooda ayaa xirada UK ku sugan ciidamadii ugu badnaa ayaa halkaas loo geeyay lama oga sida uu xal noqon doono laakiin hadda ciidamadu waa is horfadhiyaan mar walbana dagaal ayaa la filan karaa dadka deegaankana waxa ay ka fogaanayeen khasaare uu ka soo gaaro dagaaladaasi waxaana ka baxeen guud ahaan meelihii ay ku sugnaayeen ee gobolka Gedo si gaar ah degmada bilad xaabo oo dagaalka xoogan uu ka dhacay maalmihii la soo dhaafay wuxuu ka soo kordha barnaamijyada wararkeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa saaxiibayaal